السلام عليكم walaalay qaali aan jeclahay waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan waa walaashiin mar kale muuqaal cusub waxaan idin leeyahay maanta waxaan inoo wadaa casho yar oo fudud waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaalay qaaliga ah asxaabta cusub waxaan idin leeyahay gacan furan ku soo dhawaada channelka waa channelkiina hadduu idin soo gaaro muuqaalkan inoo shargareeyo laagtan inoo sii insha Allah meeshan sida arkaysan waxaan ku haystaa waxaa waaye kabsar caleen maaha laakiin waa geed yar oo kabsar caleen u eg waa soo jarjaranay waa soo nadiifiyay halkaas ayaan kusoo ritay iyo laba xabo toon ayaa halkaas kusoo diyaarsaday insha Allah waxaan rabaa ciishka inaan dusha ka mariyo hadhow haddana waxaan guda galaynaa insha Allah waxaan qasanaynaa ciisheeni soo 3 koob oo bur ayaa halkaas kusoo shubtay sida arkayseen waxaan ku darsaday hal xabo ukun haddii aad ukunta xasaasiyo ku tahay waa iska dhaafi kartaa qasab ma aha waxaan kusoo darsaday kaleeto 2 qaando oo sokor kadibna waxaan ku darsaday wax yar oo cusbo waxaan kaloo ku dari doonaa insha Allah fiiso ama khamiir qofka sida uu garanayo mid qallalan haddii aad haysto isticmaali kartaa tan qoyan ayaan hadda isticmaalay laakiinse waxaan halkan kale kusoo diyaarsaday waxay tahay koob bakeeri caano ayaan soo qandiciyay caanaha aad kulul iyo kaaga noqon insha Allah waa qandac meel adiga dhexdhexaad ka soo dhigo oo san ku gubeynin oo kaleeto soo hadda waxaan bilaabaynaa insha Allah cajiinkeena ayaan si fiican u soo xashi doonaa meer cajiinkaaga si fiican aad u qasto wuxuu ka qayb qaadanayaa ciishkaaga ama haddaad ciish dubayso haddaad dubayso rooti inuu si qurux badan uu kugu soo baxo soo ha ka hagran insha Allah gacantaada si fiican ugu xiji waqti la qaado kadibna marka intaas soo dhexgeli waxaan ku dar doonaa qaando saliid haddii aad saliid subag hadda haystaan ku darsan kartaa qasama saliid cadeed oo kale ku darsato waxaan kaloo kusoo daray qaando haaf iyo bar Turkish yogurt waa idin tusi doonaa insha Allah maaha mid leh dhadhan ama waxba waxaa plain way kan insha Allah caagid inaad aragteen rajayna muuqaalka bubsi laakiin karaal noqda intaas ayaan soo dhexgeli doonaa insha Allah waxaa waaye cajiinkaaga meer si qurux badan ayuu kugu soo baxaa si fiican marka u xashto xashida waxay ka qayb qaadanaysaa inuu cajiinka ku jilco waxay ka qayb qaadanaysaa dubidaada kale si qurux badan inuu kugu soo dumato sheyga aad markaas dubayso insha Allah hadduu yahay ciish iyo hadduu yahay rootiba inta halkan waxaan kusoo shubtay buran kusoo darsaday kadibna si fiican ayaa xashiinaa insha Allah labada gacmood lagal waxaa waaye ha ka hagranin 10 daqiiqo kugu qaadato 20 daqiiqo kugu qaadato ilaa ka hesho cajiin isqaba oo si fiican isku dhex galay oo hadda saas u tataabato koola camal ku soo raacay markaas waxay cadeynaysaa cajiinkana si fiican u qastay oo si fiican isku ka dhex galay maasha Allah tabarakallah ciishka aan sameeyo doon insha Allah waa arki doontaa waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan haddii aad familka casho ahaan ugu sameyn kartaa xaajigaaga ugu sameyn kartaa waxaa xuma diidaa ciishkan meesha caagidii ayaan ku soo celiyay oo markii hore aan ku qasay kadibna wax yar saliid ayaan dush ka mariyay dab ayaan halkaas ku siiyay 40 daqiiqo ilaa saacad ayaan sugi doonaa insha Allah soo xajiinkeena oo inoo soo fax maasha Allah tabarakallah waan isku celi doonaa mar labaad oo markuu soo faxo waxa fiican cajiinkeena si fiican hadan isku dhex gelisid oo mar labaad aad isku celiso hawada ka saarto halkan waxaan kusoo daadsaday bur ayaan kusoo daadsaday kadibna insha Allah waa kuus doonaa kuuska ugu hore intus doonaa sida kuusas isla eg inaad ka sameyso sida arkaysa cajiinka si fiican ayaan isku soo dhex geliyay maasha Allah tabarakallah saas ayaan u jarjarayaa hadda waxaan intus doonaa insha Allah muuqaalka kama uu dheeraaday waxaan jeclaystay inaan xogaa yar soo gaabiyo waa soo wada jarjara halkaas ayaan kusoo wada tixday wuxuu ii noqday 8 kuus ii noqday waa idin tusinaya xabada koowaad anigoo fidinayo kulay si kasta qof kasta uu garanaa sida cajiin loo fidiyo meeshan waxaan soo qaatay qorigeyga dhag haddii aad bur jeceshaa waa ku fidsan kartaa haddii aad saliid jeceshaan waa ku fidsan kartaa cajiinka aad iyo aad ayuu u jilcan yahay saaidna uma adko waxaa waaye maasha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karo waxaa dhuubna u fidsan kartaa si isla wareego kale sida hadaan u fidiyo kaleetan u fidsan kartaa maasha Allah tabarakallah laga sheekeyn karo birtaawad hadda way inoo soo kulaatay xabadii koowaad ayaan ku bilawnay maasha Allah tabarakallah xabada labaad ayaan tusinayaa waxaa waaye toon iyo geed kabsar caleen oo agadaad idin tusinayay iyo aan isku soo darsaday waxaan kusoo darsaday subag ayaan kusoo dhalaaliyay kadibna dusha ayaan ka soo mariyay dabka saar waxaa sameyn kartaa birta iyadoo ku saaranta sidaas hadda u marinayo kale u marin kartaa haddii aad jeceshahay markaa fidsato ayaa hore soo marin kartaa oo si hoosh kugu fududaato waxaan rajeynayaa inaad fahanteen insha Allah waxaa carafta
toonta waxay yani wixii u yeelaysaa udgoon ah inaba caadi ahayn ayay u samaysay yani dhadhan oo heer sare maasha Allah tabaarakallah. kabsar caleenta haddii aad haysato waa isticmaali kartaa insha Allah. geedda magaceed ma garanayo laakiin kabsar caleen u qaab egtahay laakiin kabsar caleen ma way ka yara way ka caleemo xoogaa weynta weyn ka yara adag tahay. so insha Allah waan saaid ayaan usoo jarjaray kadibna waxaan kusoo daray toonta idin sheegaya dusha ayaan ka sameeyay maasha Allah tabaarakallah. lagama sheekin karo sidaas quruxda badan ayaa ceyshkiina kusoo wada doonaa insha Allah. isla socod wanaagsan. ceyshkeena quruxda badan saas ayaan kusoo dubanay sida arkaysaan waxaa waaye inaba caadi maha lagama sheekeyn karo. caruurta loo kariyo xilliga qaboobaha fuul digirta oo kaleeta loogu sameeyo insha Allah. maraq guduudan oo kale oo samaysan kartaa ani insha Allah waxaan u samaysan doonaa digaaga shafka ayaan u samaysan doonaa waa arki doontaan. digsigiina ay dabka soo saarnay xoogaa markuu dabka inoo saarnaa wax yar qandac been soo noqday ayaa waxaan kusoo darsaday wax yar saliid oo oliifka ayaan isticmaali doonaa insha Allah. meesha waxaa kusoo jarjarto waa basal hal xabo basal isqabto ayaan si isla eg kusoo jarjaray kadib intaas ayaan isku soo shiili doonaa. digsi dabool ayaan dhab kusoo siiyay inta isku soo shiilmayso kadibna xoogaa markii inoo soo huurtay kaaliska araya lagama sheekeyn karo. waxaan kusoo daray waa digaageeni ama doorada shafka qof walba sida u garanayo insha Allah ayaan kusoo riday kadibna waxaan kusoo daray wax yar oo cusbe ayaan halkaas dhag dhanaanka intaad rabto ama heerka u gaarsiisan yahay kulli adiga qiyaas ahaan ayaa indhaha ayaan ka qiyaastaa. kadib waxaan soo qaatay qaando yar oo iska mida dulshada lagu walaaqo kaleeto waayo digsiga waxaan diidayaa digaaga shafka oo kale hadda walaaqasta ama yacni qaandada lagu badiyo buraas oo inuusan igaba burin ayaan ugu talagalay. kadib waxaan soo qaatay halkan sida arkaysaan baradho 4 xabo baradhe ayaan waxaan usoo jarjaray si yar oo isla eg. waxaan kaloo kusoo darsaday tikka masala maraq digaag iyo waxaan ku darsaday filfil iyo basbaaska qalajisan la isku daray cafwan. kadib intaas ayaan soo dhexgelinaa insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan. waxaa waaye casho inaba caadi ahayn oo aad iyo aad u fudud waaye. kadib halkan waxaan kusoo jarjartay 2 xabo oo tamaanta ama yaanyo oo burbur ayaan waxaan kasoo fiiqay maqaarka koreeto. so intaas ayaan isku soo huuri doonaa wax biyo ah kuma daray hadda insha Allah. daboolka dhab u siistay dabka ayaan u gaabsaday muddo 15 daqiiqo kadib ayaan soo noqday kaaliska arag iyadoo noqotay waayo yaanyada ayaa biyo dhalayso uma baahnid biyo. so inaba caadi maaha waxaa waaye waa maraq yar oo iska fudud easy oo haddana inaba caadi ahayn dhadhankiisa aad u sareeyo. so waxaan rajeynayaa inaad barweysaan ila tijaabisaan insha Allah oo ka faa'iidaan. waxaan kaloo soo qaatay waa crème fresh oo 2 qaando ayaan kusoo darsaday halkaas sida arkaysaan. crème fresh haddaadan haysan caanaha gareedaha ama caanaha whip cream-ka kale waa isticmaali kartaan insha Allah. laakiin crème fresh wuxuu kaga roon waxay tahay dhadhan gooni ayuu maraqa aad karinayso u yeelayaa. kadib waxaan kaloo kusoo daray wax yar oo caanaha oo whip cream-ka ama ayaan kusoo darsaday eegin sidoo kaleeto waayo crème fresh-ka xoogaa wuu yara adag wax yar oo jilciya ayaa loo baahan yahay. sida arkaysaan ani wax biyo ah kuma aanan darin suugada. waxaa waaye cunto fat leh waaye laakiin caruurta u fiican tahay ma fahanteen. hadda ilmaha haystaan insha Allah u karsada ilmaha caatayaasha ka bixiya caatanimada. inta soo iska yara kaftar insha Allah. barbarooniga cas iyo midka cagaaran ayaa soo jarjartay si yar iyo kabsar caleen kadibna waa karsaday maraqeeni kaal lagama sheekeyn karo
kaal iska arag baaquligaas yar ayaan kusoo shubtay ceeshkeeni inaba caadi maaha waxaa waaye waa kaas hadda indhihiina idiin macalin insha allah ceeshkeen saas ayuu u jilcaya kaal iska arag haafka kaleeto waa lala haday intaa duwaya lala biibay so waxaa waaye ceeshka saas u jilcaya maasha allah tabaaraka allah iga dhadhamihaya waa idinka dhadhamina insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iidaan haddii aad samaysaan insha allah ila soo wadaaga commentiga xaggiisa haddii inta nala soo gaarto muuqaalka waxaan ka codsanaa walaasha ama walaalkeen muuqaalka inaad noo shargalayso naagtana hanaga ilowin insha allah muuqaalka xig waxaan idin rajeynaa kheyr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo kulanta